tufaaxa. Cilmi baaris la sameeyay 2006 ayaa lagu soo bandhigay in antioxidants-ka oo ah midda ka ilaalisa inuu oksijiin uu isku laalo chemicals-ka jirka si uu uga dhigo oxidants uu si fara badan u dhex qooshan yahay tufaaxa, kana caawisa maskaxda yareynta dhimashada uu sababo oksijiin inuu isku laalo dheecaannada jirka ama process-ka la dhaho oxidation, iyo welibana caabuqa maskaxda. Sidoo kale waxaa tufaaxa ku dhex qooshan maaddooyin badan kuwaas oo kordhiya xusuusta qofka, ka hortagga waallida. Cunitaanka tufaaxa wuxuu nafaqeeyaa una roon yahay caafimaadka maskaxda. Cunista hal xabbo tufaax ah maalintii waxay ka hortagaysaa in unugyada maskaxdu ay awoodi waayaan iska saaridda walxaha sunta ku ah maskaxda, taasoo sababta inuu yimaado xanuunka Alzheimer's disease oo ah lumitaanka xusuusta iyo hawlgabnimo. Yareynta khataraha stroke-ka. Cilmi baaris lagu sameeyay dad 9,208 oo rag iyo haween isugu jira ayaa tusisay in dadkii isticmaali jiray tufaaxa 20 sano ay haystaan caddiga ugu yar ee khatarta stroke-ga. Istaagga wadnaha. Maadada pectin ee laga helo tufaaxa waxay la dagaashaa nuugitaanka kolestaroolka, sidaasna waxay ku yareysaa fursadda ah in halbowlayaasha jirku ay awdmaan, taasoo keenta in uu wadnuhu dhiigga tuuri waayo kadibna uu wadnuhu fadhiisto.